نبان حقناها ciidankan ayaa waxay sheegeen inay ka tirsanaayeen hay'adda nabad sugidda waxayna sheegeen in muddo 3 bilood ah in ay ka maqan tahay xuquuqdooda kadib markii ay hadda sheegeen in ay soo faaruujiyeen furun garoonka diyaaradaha ee degmada Dayniile ciidankan ayaa cabasho ah muddo 3 bilood ah waxay sheegeen inaysan helin wax xuquuq ah waxayna tiradooda ku sheegeen ilaa 90 askari haatan waxay xirteen wado halbowlo ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee madaxtooyada waxaana hadda socda isku day saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda si ay xaaladdan u qaboojiyaan annaga waxaan ka tirsanahay oo nagula soo daray hay'adda nabad sugidda waxaana la geeyay eelaboorka Dayniile kowdii bishii shanaadana la geeyay kowdii bishii lixaad ana la geeyay haddeerna bishii sagaalaad lagu jiraa ilaa iyo haddeer dawladda wax xuquuq ma aan ka hayno haddana dawladdu koorsayna gelisay koorsada waa ka soo baxnay dariis iyo qoryo noo dhiibeen intaas waxaa noogu soo xigtay kadib markaan 3 bilood soo dhammaysanay oo shaqadayna ka soo baxnay wax xuquuqa leedinama haye meesha ku kala taga in la yiraahdo intaas noo soo baxday waxaan ka cabanaynaa xuquuq la'aantaas iyo mushimaadaas meeshaas ka dhacday anaga intaasaan ka cabanaynaa waxaan xuquuq la'aanahay 3 bilood kulley saraakiishii ciidanka soo qortay oo koorsada ka soo bixisay oo ciidanka meesha geysay eelaboorka Dayniile geysay waa saraakiishaas aniga hebel ma dhahayo laakiin waa saraakiishii ciidanka koorsada gelisay ka soo saartay eelaboorka Dayniile dejisay dabadeedna anigoo dariis iyo hubaysan oo dariis iyo qoryo wadana waxba idin ma hayna meesha aad ka bixaysiin magaalada geeska gala hadde magaaladana xaaladeeda waa la socdaa midaas meesha aad joogno waa meel laga warqabo oo la geeyay oo dad madaxa geeyeen waa meel dur ah oo eelaboorka Dayniile ah waxaan ku joognay in meesha la geystay oo xuquuq iyo aan ku sugno dawladdu waxay naga rabtay shaqo iyo waajibaadkii qarannimo iyo waajibaadkii ciidanimo marka soo gudunina waxaan wala xujeeyay in la dhaho maanta meel la haayo ama meesha aad ka tirsantiin ma jirto waa ninkii joogayna ha joogo ninkii iska tagayna ha tago taas waxay noqotay wax aan anaga qaadan karin ilaa meesha waxay ahayd meel duur oo furun ah xaafadeena ku meelin waxaan ka soo tagnay dad waxaan ka soo tagnay ehel waxa leenahay dad nin walba wuxuu magaaladan ku joogo waa la yaqaanaa jira laga rabaa caruura wax ka rabaan ma ahayn marka in macnaa markii anaga shaqada waajibaadkeena aan gudanay allaho dawladda meel idin meesha lugta fura waan naqanaa mushaaraadka ciidanka waqtiga la soo tuuro waxa hay'adda nabad sugidda waxa ka mid tahay 4 ciidan waxaan ka tirsanahay hay'adda nabad sugidda saacadan inaan dhahdo meel niilama hayne taas waxa u arkaa qalad madaxdii meesha geysay iyo madaxdii meesha nagu ogeed iyo dadkii meesha nagu ogaay iyo dadkii meesha u joognay iyo shaqadii meesha nagu diray aan soo gudanay maanta inaan la wax kama jiraan waa iska lugee ciidan ka helayna ma jirto dawladdan waxaan u sheegaynaa aniga in qalad naga galay qaladkana ma nala saaro cabdiwaxiid cabdullaahi daayir warbaahinta dalsan muqdisho